kulanti wanaagsan dhageystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahay oo halkani waa xogta suuqa media oo aad kala socotaan mareegaha baraha bulshada Facebook, YouTube iyo Twitter. dhegeystayaal daawadayaal qaybta shanaad ee qormadeena kacaankii qorista lahjadaha qowmiyadda Soomaaliyeed oo bilowday waxaan ku soo qaadan doonaa caqabadaha taagan rabitaanka siyaasi beeleedyada aqoon-yahanadooda iyo xaqiiqadu waxay tahay iyo sida looga gudbi karo. dhegeystayaal iyo daawadayaal aynu ku bilowna qormadeena doodihii ka dhashay cutubka shanaad ee dastuurka milgaarka Soomaaliya waxaa ku qoran afafka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa afmay iyo maxaatiri sidaas waxaa qaba koox yar oo sheeganaysa siyaasiyiin aqoon-yahano xildhibaano wasiir beeleedyo iyo kuwa federaalka maamulka koonfur galbeed qaarkood haddana intooduba ninka ugu sarreeya maamul beeleedka ayaa xukuma isaga qayb u aqoonsan siyaasiyiin qaybna liiska ka saara oo ma tagi karaan deegaanka ay ka soo jeedaan kuwa sheegta xildhibaano wasiir beeleedka iyo kan federaalka isaga hore gacantiisa ugu soo xushay sidii xoolihii meel ugu xareystay waxa uusan isagu raalli ka ahayn kama hadli karaan taasina waa caqabad taagan inkastoo ay la qabaan maamulada kale haddana iyaga waxaa u dheer ogolaansho la'aan ma tagi karaan deegaanadooda lama xisaabtami karaan sidaas ay tahay waxay idaacadaha la soo taagan yihiin waxaa lagu xadgudbay dastuurka milgaarka Jamhuuriyadda Federaalka qodobkiisa ma jirto cid wax hoos u eegaysa ujeedka qodobkan meesha loogu soo daray la isma weydiiyo fulinta qodobkan waxa ka dhalanaya la isma weydiiyo deegaanada ay matalaan dhibaatooyinka ka jira waxba kama oga haddii ay og yihiin ma hayaan qorshe laga samata bixinayo ciidamada ajnabiga ah ee jooga waxa ay meesha ka hayaan kama hadli karaan haddana waxay doonayaan in qodobkaas dastuurka milgaarka ku qoran si adag loo difaaco waayaab iyo amakaag fulinta qodobka shanaad ee dastuurka milgaarka ma ahan wax afka si sahlan looga yiraahdo ma ahan mid cid kasta oo ka tirsan muwaadiniinta dalka lagu xaqto ma ahan mid lagu socodsiin karo caadifad qabiil mid siyaasi beeleed iyo aqoon-yahan beeleed ee wuxuu u baahan yahay qorshe fulin oo aad u gundheer kaasoo ah mid qaran iyo mid caalami waxaa burbursan guud ahaan nidaam maamuleedkii guud ee degmooyinka maamulka koonfur galbeed waxaa gebi ahaanba kala xirxiran 18 degmo ee asalka ahaa ee maamulkan uu sheegto dadka deegaanka intooda badan way ka qaxeen degmooyinka saddexdan gobol ee Shabeellaha Hoose Baay iyo Bakool oo waxay ku jiraan xerooyinka qaxooti gudaha iyo dowladaha dariska dadka intooda hantida leh iyo inta awooda ee ku haray deegaanadan waxay adeegsadaan diyaarado waxaa si ciriiri ah oo waliba sicir bar u dheertahay sahayda loo marsiyaa jidadka ay isbaaradu dhigteen maafiyada magaca diinta ku qaraabta haddana sidaas ay tahay ma jirto qorshe isku tashi oo dadka deegaanku ay leeyihiin oo loogu garaabo siyaasiyiintan balse siyaasiyiinta beelahan waxay sidii barakacayaashii ku hoydaan hoteelada caasimadda Muqdisho iyo deegaano si adag loo ilaaliyo waa yaab kale oo u baahan in la daraaseeyo dadka garashada noocaas leh baa waxay doonayaan in masiirkii ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka jiilasha soo koraya tacliintooda in qaab beelaysi abaabulan ay isbaaro ugu dhigtaan si loo fuliyo qodobkan shanaad ee dastuurka kumilgaarka Soomaaliya waayo qodobkan dastuurka lagu soo daray markii la diyaarinayay ayaa markiisii hore wuxuu ahaa mid qaab oo doorasho madaxweyne lagu galayay markaana lagu kala qaybinayay siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada xilligaas joogay ee beelaha Soomaaliyeed iyagoon si xeel dheer uga fikirin ayaa lagu soo tuuray taasoo ay u arkeen siyaasiyiinta iyo aqoon-yahankii beeshan abaabulan xilligan guul taariikhi ah oo aad u weyn maadaama inta badan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka dalka horboodaya xilli kasta ay intooda badan halbeega ugu weyn ee ay wax ku qiimeeyaan u ahaa daasadaha faaruqa beesha oo la buuxiyo iyagoon ka fikirin in la soo saaro jiil wax bartay oo dalka iyo dadka wax u tara isla markaana iyaga bedeli doona ayay go'aankaas hore ka qaateen walina way marqaansan yihiin ugu dambeyn anigu waxaan ku talin
doonayaa in qodobkaas lagu bedelo afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa af Soomaali. marka sidaas aan leeyahay ma jirto cid gaar ah oo lagu xusay halkan iyo kuwa laga fogeeyay. dadka Soomaaliyeedna waxay leeyihiin in ka badan 6 lahjadood ama af guri. dhegeystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahayo maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 16 bishii 2023 barnaamijkeena intaas ayuu inoogu ogyahay. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waanigoo ah Maxamed Macalin Ismaan Oolman, Minnesota USA. nabadgelyo. أريد فرصها وهبارني على الكسر هري يروحوا شيء هري حتى أريد فرصها وهبارني على الكسر هري يروحوا شيء هري ورودنا رهبوزي ورودنا رهبوزي كان فوقالي وحده ريادني ورودنا رهبوزي ورودنا رهبوزي كان فوقالي وحده ريادني